dhawaanay ahayd markii maamul goboleedka Puntland loo doortay madaxweyne cusub balse mas'uuliyiin ka tirsan dalka Soomaaliland waxay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Puntland mas'uuliyiintaasi u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland waxaa kamid ah gudoomiyaha xisbiga macaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxayna hambalyadoodu u dhigneed sida tan halkan waxaan uga dirayaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland dooratay aan leenahay hambalyo waxaan u sheegaynaa inaan dad walaalanahay oo jaaran nahay waxaad gudubkii u berigii ka horeeyay uu nagu sameyn jiray inaan noola kicin ee dad walaalo oo jaaro isku soo bohiyooba oo isku hiliya Ilaahay haynaga dhigaan leenahay mid maalin ka hadlayay Cali Ciise oo hadlayo meesha ka caytamayna waxaan leeyahay waan ku sheegay waad garan weeyay damin baatay oday damin ma laha waanu heleynaa waxa weyn Cali Ciise Soomaaliland buu dhashay oo Soomaaliland yimaada halkaas aan ka dooranayna isagu mucassas mukarrama laakiin meel aan laga rabin indha lama sirraa inuu jeclaysto ma aha isku qabiil baana isku isir baana halkan waa wadankiisi kale baan leenahay odaygan waxaan leeyahay maalintii qaylqaylinayay waxaan ku sheegay waqa hal qof buu helay xitaa kuwii ilmadeeradii ka carray hadii toddobaad siin ciidan ma qabno qabadee naga tagay laakiin Ilaahay ummadda ka qabta baan leenahay waa dadka ninka dagaalkii xamaasadii buuqa waday buu ahaa isaga qaar kale soo qaylin jiray sooliye sanaag baan xoreynaa waxaan leenahay Cabdi weli gaas waxaan leenahay assalaamu baan leenahay nabadgelyada waxaan leenahay ilaali nin weyn oo miisaan leh baan noola eegtahay nabadgelyada walaalnimada ilaali dad walaalo jaarabay nahay oo isdhalay oo isku maqan bay nahay marka xuduud baan Ingiriiskiino kala sameeyay xuduudkeena aniguna ka soo gudbayno inkuna ka soo gudbina baan leenahay marka dad walaalo oo laba dawladood walaalo jaarabay noqonaa oo isku boundary laakiin aan la diidi karin marka garoway maad adiga laguma diidi karo halkan marka waxa leeyahay inta aynu oofino nala oofino anagu taas uma doonay nabadgelyada hal ilaaliyo taas ay nabadgelyo ku socoto marka hore Ilaahay maxamed inay ku dhamaatay nabadgelyo doorashadaasi marka labaadna waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu noqdo madaxweyne khayr qaba ummadda ka shaqeeya wanaag iyo horumar ka shaqeeya Ilaahay u baryayaa سعيدنا وأنا وسيس شخصي هاي أنا صاحب معي دور شربان كلامي وأنا وقلمه إنه ما قصته هجان كجودنا وما أنت كشرة دير كشرة دير كسارة وهرمر إيوه ولا لما إيوه ورواقه وهرشة إلهي كبرية وأنا ساكون على الدنيا بإذن الله الكريم جودهنا وحنا أدي وحنا بليانية dadkii codka bixiyay waxay taas xusuusisaa inay dad bislaaday yihiin oo aanay lacag iyo eegin qabiile eegaan dantooda danta dalka iyo ummadda ayay ka sareysayeen danta khaaska ah marka 66 qof ka footay wana baleenaya waxay muujiyeen garaad wanaag ay muujiyeen xilka kasniga ay muujiyeen waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inaynu wada shaqeyn wanaagsan yeelano Soomaaliya ma baahna maanta dhibaato iyo burbur iyo dagaal qofkii tuula hagaajiya waxa Soomaaliya hagaajiyay oo nabad ka dhigay ina camiyo Cabdiwali Gaas waxay khasaare u keeneen Soomaaliya oo dad badan bay iskaga dileen oo loo baahneen marka waxaan jecelahay arrintaas ay si dhaqso ah inuu dhameyn doono insha Allah ta'ala balse maxay noqonaysaa jawaabta uu bixiyay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland inkastoo ay sida gobolada kale ee koonfurta ay dhahayn laakiin labada buurood ee dhinaca galbeed iyo bari ka kala xiga ee magaalada Boosaaso waxa xarumo kule ama ka howlgala al-shabaab iyo ISIS waxa nooga qorsheysan dawladda Puntland iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo dhammaan awoodaha ay leedahay inay arrimahaas ahmiyad weyn siiso ulajeedada u dambeysana tahay inay soo afjarto si dalkan ammaankii uu ku nooloon jiray loo helo annaga iyo maamulka Soomaaliland muran dhuleed naga dhaxeeyo laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland waad ogtihiin 19 dalku markuu dhacay dalku waxa ka jira 18 gobol oo la yaqaan cayiman wixii inta ka dambeeyay
dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiisay Somaliland waxa lagu aasaasay markii ugu dambeysay marka Burca laga tago Boorama qabaa'ilkii ku bahoobay waa la yaqaanaa Garowe markii la aasaasana qabaa'il ku bahoobay waa la yaqaanaa qabaa'ilku ku bahoobay Puntland sideeda waa gobolada Bari Nugaal waqooyiga Gaalkacyo Sool Sanaag Bari iyo Buuhoodle wax muran oo ku jira male taariikhduna way sheegaysaa dadkeedana waa joogan cid ka maqnayd oo qabaa'ilka dadkaas iyo siyaasiyiintiisa dhisidii ma jirin iyo ururadii markaa matalayay ee SSDF USB SNDU marka cidda xadgudubtay dadku waa u jeedaa waxaan rajaynayaa inay iyagu waansamaan annagu dagaal ma aha ulajeedadeenu laakiin dhul muran aan uga jirno ma jiro annaga muran ma jiro dhulkan dhul ay ku soo xadgudbeen way marka waxaan rajaynaynaa inay si nabad uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimo Ingiriis noqdeen anagu Talyaani ma nihin dhul 60kii ka hor Talyaani Ingiriis baa gumaysan jiray halka ma yaalo dal Soomaaliyeed oo calan qaatay 1 Juulaay ummadda Soomaaliyeed oo xor ah oo jamhuuriyadda Soomaaliya lagu dhisay taas adduunka aqoonsan yahay UN ku aqoonsan yahay dalka Soomaaliyeed waa dal Soomaali la yiraahdo marka cid khaldan iyana waa istaqaanaa wixii iskhilaafsan baa wax loo kala qaadaa laakiin wixii khaldan waa la qabtaa أنا waxaan qabaa mashruuca Soomaaliland waa mashruuc khaldan oo wadadii saxda ahayd marka kulli cid qabato way heli doontaa ama waqtiga qaban doona laakiin anu hadda ma arko khilaaf annaga noo dhaxeeyo dalka Soomaaliya waa la yaqaanaa soodamihiisa goboladan waa la yaqaanaa dadka degan waa la yaqaanaa marka halkaas waxay la tahay su'aasha iyaga awoodii leed anu kama jawaabi karo